muslimka wax soo saarka leh. haddaba meesheeyay ku kulmaan iimaanka iyo wax soo saarka. maanta waxaana la jooga cabdirasaaq kanadiid. haddaba cabdirasaaqow, sidee bay diinteena u boorisay wax soo saarka? bismillaahi araxmaani araxiim. kusoo dhowaada youtube-ka Go Fagara Podcast. maanta mowduuc xasaasi aad iyo aad muhiim u ah ka dhalinyar ahaan dhalinyarada muslimiinta ah aad u boorinaya yaan doonaya inaan maanta mowduuca aan idila wadaagno. mowduucan wuxuu ku saabsan yahay muslinka, dhalinyarada muslimiinta iyo muslim dhammaantiiba siduu wax soo saar ku yeelan lahaa. ciwaan waxaa jira niyaroo dhalinyaraha u qoray buugga titlekiisa amba tiiterkiisa waxa weeyaan The Productive Muslim. marka The Productive Muslim oo Englishku maxaa la yidhaahdaanay ku qoran, Soomaaligiisana uu soo turjumay niyaroo kaloo dhalinyaro walaalkeena oo Cabdikhaaliq la yidhaahdo. ciwaanka liidarka Soomaaliya ahaan wuxuu ku noqonayaa muslimka wax soo saar kale, meesha ay ku kulmaan iimaanka iyo wax soo saarka. iimaanka uu Ilaahay nagu manaystay iyo wax soo saarka creativity-ga waxaa la yidhahdaa afka gaalaad, siday xagga ku kulmaan. marka mowduucaasoo dhan oo faahfaahsan waxaan idinku boorinayaa liidarkaas inaad soo iibsataan ood akhrisataan ka dhalinyar ahaan. baraacadda ummaddii loogu talagalay lectuurka inay wax akhriyaan ee qur-aankoogu ahaay inuu maxaa la yidhahdaanay aayaddii u horreysay ay ahayd iqra, ayaa maxaa la yidhahdaana maanta wax ku akhrinayn. annaga waan ku seexanaaba, akhrista waa lagu seexdaa, ka maxaa la yidhahdaanay ka Soomaali ahaan ka Afrikaan ahaan. marka isku daya insha Allah inaad mowduuca had sii baadhaan oo buugga had sii akhrisataan. aniga markaa qodob bay iga cajibiyey buuggaas. qodobkaas oo ah muxuu Ilaahay annaka adduunka noo keenay ka bilaadan ahaan. Ilaahay adduunka noo keenay ayaa shay muhiima oo maanta dadkoo dhani ay garan laayeen. ta koowaad, Ilaahay baaba qur-aankiisa ku sheegay wamaa khalaqta aljinna walinsa ilaa liyacbuduun. aayaddaas ayaa noo caddaynaysa Ilaahay wuxuu noo keenay jinni iyo insi waxba kama maxaa la yidhahdaana wax kale uma abuurin ilaa maayo waxaanu abuuray inay caabudaan. aayad kale ayaa jirta qur-aanka oo iyadna odhanaysa maxaa la yidhahdaanay Ilaahay wakiil inaan dhulka uga noqono wakiil. dadkaanan fahmayn kolley waxaan ku micnayn lahaa uun yacni dee responsable. dhulka Ilaahay dhulkan wuxuu noo keenay inaan responsable uga noqono, gaaran uga noqono, isaga in lagu caabudo, isaga lagu maxaa la yidhahdaanay lagu caabudo oo siduu isagu rabo iyo wuxuu naga reebay iyo wuxuu yidhi sameeyaba lagu dul sameeyo oo wax kale lagu dul sameyn ayuu Ilaahay noo keenay. marka maanta muslimka maanta jooga arrinkaas aad iyo aad baan uga gaabinay. liidarkanna waa nagu dhiirigelinayaa, aad iyo aad buu nagu dhiirigelinayaa. marka waxaan idin leeyahay dhalinyaro waqtigiina idinkoo ka faa'iidaysanaya buuggaana ha la ogaado, ha la akhristo. ninkii ingiliiska yaqaana PDF ku helayaa, ninkii kale maxaa la yidhaahdaanay Soomaaliga garanayana wuu soo iibsan karaa. iqra books meel la yidhaahdo jirta oo laga maxaa la yidhahdaanay iibsado buugaanta muhiimka ah. marka insha Allah buuggaasaan isku ognahay mowduuc intan kasii faahfaahsan ka caawiya.